hablaha maaliki oleyli hablaha maaliki oleyli وعلى بولادي بالسجا الخبرتاري وعلى بولادي بالسجا الخبرتاري صافك 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 markii hore intaanan balaabin waxaan aad ugu mahad celinayaa marwo roodo oo ah marwada soo qaban qaabisay raggan iyo gabdhahan aad u jeedaan oo dhalinyarada ah waxaanan soo bandhigaynaa xaflad kasta oo aan qabanayno wadanka Norway inaan saa u soo bandhigno hidii dhaqankeena aan marnaba aanan iloobin hidii dhaqankeena waxa kale oo balan idinku qaadaya shiribkii laakiin ay iga keenayso qiirad wadaninimo dhaqankii oo jeclahay waxaan go'aan ku gaaray wax yar inaan ka qaado halkan oo aan ku soo dhaweynayno mudana Yaasiin Maaxi aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin SSUB waa urur weyn hallo adeego heroslo 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 SSUB waa urur weyn hallo adeega heroslo salaamku gaara hoogu weyn naga gudoomiyo salaamku gaara hoogu weyn naga gudoomiyo salaamku gaara hoogu weyn naga gudoomiyo aday day 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 aday day 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 dhammaan ka soo qaybgalayaasha ajiibay soo dhaweynta walaalkeen wadaniga ah siyaasiga ah isla markaasna naga soo booqday wadanka Sweden oo booqasho ku yimid wadanka Norway asagoo ujeedadiisu tahay hadaf siyaasi ah asagoo u socda maaragtay in uu Soomaalida kala hadlo arrimaha siyaasadda gaar ahaan xisbi la yiraahdo SSUB. Og jeg tenker at det er med på å vise oss at vi kan stå sammen, og vi kan jobbe sammen. Og det møtet her skal jo handle mye om viktigheten av demokratiet, at hver enkelt stemme skal høres. Da har jeg lyst til å gi ordet til kveldens hedersgjest, Yasin Malin. Det er en stor ære for oss å ha deg her. Jeg håper at vi kan arrangere et nytt møte som ikke er på påskeaften, men litt nærmere valget, sånn at vi faktisk får flere som ikke som alt til å møtes. Så kan vi diskutere og prate, og så viser vi at sammen så klarer vi å endre på samfunnet. Yasin Malin, vær så god. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتك أو نغير سيداس قبل ولاشين أي شيء يسو بتينا ما دام أي بحيسو وحرم أنا جس وحيرو أو سويدش أنا ماشي أنا قام قصود يا سلام ربنا وشيء jag vill tacka dem som har arrangerat detta fantastiska möte med tillsammans Norska Arbeiderparti. Särskilt vill jag tacka Aini Hussein Marwa Aini. Jag vill också tacka Bettina Thorvik, Naima Asair, Master Jan, som har också kommit i kontakt med mig. Sportigu waxa weeye waa nabad marka meel adarataada meel lagu ciyaarayo shiribkii hadda oo kale meesha lagu ciyaarayo waa meel nabada kubadda cagta meel lagu ciyaarayo ma kubaduhu noocu yahay noqotay sportigu qaybteed doonta noqotay waa meel nabada
waxaa ogaataan inay astaan nabadeed uu yahay isboortigu male qabyaalad. kow ay ka tahay diinta, laba ay ka tahay dhaqanka, saddex ay ka tahay luqadda, afar ay ka tahay waxa ka dhaxeeya ee dalka ah aysan u kala tegin. ururkan SSUB waxaan u malaynayaa waa urur cusub, waxaa hogaaminaya nin dhalinyaro ah, aqoon-yahana isboortiga. sidaas daraaddeed hadduu mar badan qurbo joogay oo wax badan qurbo joogo wax ku bartay, dhalinyaro uu yahay, isboorti uu yahay, waxaan aamini karnaa ama qiyaasi karnaa inuu yahay xisbi mudan in lagu beero laga mid noqdo. waxaa marka koowaad mahad iska leh ilaahay noo sahlay inaan halkan aan sugu nimaadno oo arrintan cajiibka ah aan ka wada qaadano dhammaantayada. marka labaad waxaan mahad siinayaa dadkii arrintan soo abaabulay muddada aan balgaha aan ku jiray. waxa aan bartay Soomaali maanta nafteeda aan u hurayo, dad waaweyn ah, dad yaryar ah, hooyooyin ku jiro, walaalayaal adeerayaal ku jiro. dadkaas qaar ka mid ah boqorooyinka iyo boqorada aan la kulmay oo meel sare iga taagan maanta waxaa ka mid ah Marwa Cayne, Xuseen iyo Baadiya Boodaya. waxaan idinka codsanayaa idinkoo raali ah intaa wada istaagtaan inaa hal mar wada salaantaan iyagoo dhan. عربت واحد ترى الرائد لا يكذب على قومه ninka sahanka ah qoomkiisa been uma sheego. khibradayda markaa aqooneed ee dalka ayaan xoog ugu badan saaray ilaa 15 sano. taasi markaa waxay siisay xog la helayaaba tale la hel. xogtaasna micnaheedu waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee degan Norway tiradooda lagu qiyaasay 23,600 waxa ka buuxdan resource. waa dad sharaf leh, caqiide leh, diin leh, dhaqan leh, wax walba waynu leenahay. laakiin meesha sartu ka qurmaysa waxa weeye Norwayna waxay leedahay dhaqan burburay, caqiidadii si kala noqotay. the clash of civilization baa meesha ka dhacay.
ururka shaqaalaha waxaa lagu yaqaanaa kelmadda la yidhaahdo alle iska mee dhammaanteen waan ku tirsannahay waxaan ummadda sharafta leh ee ragga iyo dumarka isugu jira ee halkan isugu yimid kaga mahad celinaya sida sharafta leh ee maanta waqtigiina aad noola qaadanaysaan marka ugu horeysa waxaan anuu ku hadlayo codka walaalahay miiskii la fadhiyahay u mahad celinaya abaabulayaalka barnaamijka ee noo suurageliyey inaan isku nimaadno inaan wada hadalno in aan qaybsanno aqoonta fikirka iyo culayska waxaa saxaafadda soomaalida khaasatan magaalada Oslo ka dhisan website-keena Soomaaliyeed Deeyo waxa uu baray dadka Soomaaliyeed mahad gaar ah inoo tahay inuu nala joogo deeq oo ah madax Deeyo dhinaca siyaasadda waxaa magaalada Oslo ka dhisan website Soomaali ah oo Soomaalida mar walba garab taagan waa calanka wuxuu nii baray ama ay tusiyay dad Soomaali ah oo doonaya inay noqdaan heer xildhibaan degmo ubax iyo baashi waa kuwaan hortida fadhiyaan waxa idin baray waa saxaafadda tan kale saxaafadda waxay tahay door muhiim ah waxaa nala joogo website weyn Soomaali weyn milkiileeda ama maamulkeeda guud oo nala fadhiyo iyo sidoo kale website-ka calanka hortiina ay fadhiyaan waa kuwaan ayaga waxay nooga yimaadeen waddanka Israel marka walaalayaal gabadhaas walaashay iga hormartay shacabka oo xoog badan halaysiyo oo taageeran waxay tahay sharaf weyn inay nagala soo qayb gasho barnaamijkan awoodiisa Ikraam Caraale thank you very much baayada mahadsantahay waxaan kaloo rabaa inaan ku mahad celiyo 2 maalmood ilaa 3 maalmood oo nala shaqeynay walaalkay Yuusuf arbaco sida kale loo yaqaano aad iyo aad u qaatahay oo gooni ay noo shaqeynayeen maxay ahaato Cabdi Fataax noo joogo Umar Soomaali weyn calanka Deeyo Mr. Deeyo ما شاء الله أنا أقوم أصدقها ولا راسي أنا تكاغنا ماشى نو جوتي حسين واجوغا نذكر واجوغا فرتي وحن كعود دارنا هدي أقف كتجي حلاقة على هذا وحماتنا ولا مجيدو لكن آدي عليه وما سيهين هل قفوان إلى وين ربما مركينا ماشى كشاغو قبل أول شيء نعيمه وهذا أيضا حضرت من الجوتي لكن هولي عرور وعرفتي أيضا وحويني كقارتي dadkaas oo Norwegian-ka oo la joogaan iyo barnaamijyadeedana dhinaceeda ayay aydan nagala qayb qaadatay waxaan rabnaa aydan inaan hal gacan ah sacabana siisan marka koowaad waxaan idinku amaanayaa dadka badankiisa oo halkaan aan ka wada sheegi karin sida xigmada leh ee aad u gudanaysaan waajibaadka idin saaran qof walba mas'uuliyaddeeda waa very important khaasatan dadka ka shaqeeya gobolkan Oslo waxaan dareemayaa runtii meel weyn ayaan dareemayaa inay tahay runtii waa idinkaga mahad celinayaa baashi walaashay ubax waxa ayana mahad mudan kuwii ayaga waqtigooda soo siiyey oo halkan ilaa ay safar dheer noogu yimid waxaan rabaa mar labaadna inaan ku celiyo horena aan u eri dhowr jeer aan lii weydiiyey حليل ورنيه هويات تهيالين ورنيه محل هالكان قتمن ما له بالي قويتيا واللي ودي واحد نورمال سؤال عادي وحنا جعل هاي إن مرلبات بمكة بمسدحات يمر والبابا أنكو علي يا تهي من شكر إلهي شهادة قرانا من شرفت الصوماليين شيء سيسن بانا لنا شكر في الجهاد شبهين بانا